way ku waafaqday waxayna dhiibtay qiimihii adeegeeda iyo adeegii kala badhkii. intaa kadib way soo baxday gabadhii taajiradda ahayd waxayna soo raacday gaarigeedii. in yar kadibba waxay indhaheedu qabteen gabadhii faqiiradda ahayd oo adeeggii sadaqaysanaysa hilibkiina qaybinaysa. markaas ay la hadashay waxayna ku tidhi, deeqdan maxaad ugu geen weysay ubadkaagii? waxay tidhi gabadhii danyarta ahayd, 1 kiilo oo hiliba ayaa nagu filan aniga iyo ubadkaygaba. waxaan jeclaystay hilibkan kale ee badan inaan wax ka gaarsiiyo walaalaha kale ee tabaalaysan si ay ugu afuraan farxaddan ay inoola qaybsadaan. walaalayaal waxaynu ka qaadanaynaa qisadani qiimaha ay leedahay waxbixinta welina bishan ramadaan dhexdeeda. haddii ilaahay wax kuugu deeqay adiguna deeqda wax ka gaarsii addoommaha ilaahay. ka farxi addoommaha ilaahay siduu adigaba ilaahay uu kaaga farxiyey oo kale. waa walaalkiina yaasir mukhtaar oo idinla doonaya guusha labada daarood. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.